Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Odayga Saciid Serbia soo dhawaada. Soomaali Maxamed waa idin salaamayaa. Finally Serbia kusoo noqday. Alxamdulillaah ilaa mahadis waaye gurigeyga joogaa ilmaheyga u imaaday. Haddee ta horta markuu ugu hore janalkay kusoo gaaro waxaa si xushmad leh kaaga codsanaa Soomaaliya ee xasinimada joojiya. Janalka 100,000 oo subscribe waxaa uga dhiman wax yar iga dhiman ma fahanti. iga farxiya guusheeda waa guushiina odaga loo cimaamado fiidiyoon kadib 100,000 ha lagu dhufto fiidiyoon qof kasta oo Soomaali oo soo gaara waxaa ka codsanaa inuu share gareeyo like no ii saaro sidoo kale hadaan subscribe aan ku ahayn oo aad fiidiyooga markii ugu horeysa aad tahay soo boqoto si xushmad leh janalka subscribe ii saar intaas hadii aad ka soo gudbo odaga maanta waa u jeedin nooc kale waa asiga dhan waa bedelanahay waxa u bedelanahay wax kale ma ahane waa u jeedin waxaan rabaa inaad tijaabiyo maadaama xaaskeyga ay uur leedahay saa ogtiin Messi ay tahay 7 bilood waxaan rabaa inaan baraaweeyo culeyska ee dareemayso intuu la egyahay baraada qaraac caloosh ku soo xirtay 8 kiilo waa qaraha Messi cunuga caloosheeda ku jiro waxaa waaye almost saa u maleenaayo 5 kiilo waa laakiin adi isku dar macala Soomaali maxay u dhahaynaa baashayd mandheerta iyo wax dhan adi isku dar 7 kiilo gaarayaan ma fahantay soo marka waxaan rabaa inaan arko culeyska Messi ee dareemayso ama hooyo kasta oo Soomaali oo fiidiyogan daawata culeyska ee dareemaysa rabaa inaa ogaado intuu la egyahay ma fahanti editaa muusum druga maaysan so waxaa rabaa culeyska hooyo kasta oo Soomaali ee dareemayso inaa arkaa rabaa intuu la egyahay qaraha waa qaadi la abraada so marka fiidiyoga waa u jeedin Soomaa way kaasa so waxa isku dayaa marka in aan meesha nadiifiyo ama aan arko sida aan u nadiifin karo so asla socono marka waxaa jiro rag badan oo Soomaaliyeed gabdhaha intay uur yeelaan dhahaan oo kaleeto wax walba ay qabsan kartaa caadi waaye saan waaye fiidiyo waxa u sameynayaan ma ahan ragga inaan kula dagaalayo laakiin waxa rabaa inaan arko culeyska hooyo Soomaaliyeed ee dareemayso intuu la egyahay waa hooyo Soomaaliyeed oo dhan culeyska ee dareemayso intuu la egyahay inaan arkaa rabaa soo marka waa u jeedaan wallaahi ilaahay magaciisa waaye culeys fara badan aad dareemoyaa nafiska ay ugu dhigooyo ma fahanti so waxa isku dayaa marka inaan meesha nadiifiyo marka aragna saa u nadiifinayo tusaale waa kana sababta xitaa hooyada markay uur leedahay ama gabdhaheena markay uur leeyihiin Soomaaliyeed waxaa la dhahaa wax walba waa samaysan kartaa samayso caadi waa waxaas uur naagaha way leeyihiin wax way qabsan karaan inta waaye ala dhahaa moogtaa marka waxaa rabaa inaan arko inta dareemayso culeyska oo dareemayso intuu la egyahay ilaahay hooyo jannada ha geeyo hooyo Soomaaliyeed oo dhan I have to pick up all okay waxaan rabaa hooyo Soomaaliyeed culeyska ee dareemayso intuu la egyahay Come on, don't be lazy, You use pregnancy as an excuse. Yeah, I want to say that like to see how they say that when the woman is pregnant, they say that like she can do everything, like go ahead, do that, you know. So I want to see that how it is. So yeah. Oh, أروح شقادو دي بدنا إلهي ناق إيجا مدقين إلهي ناق إيجا مدقين record me إلهي ناق إيجا مدقين إلهي ناق إيجا مدقين naagoo dhan waxa uu duceynaa ama hooyo Soomaaliyeed oo dhan aaba ila aruuri hooyo Soomaaliyeed oo dhan waxa uu duceynaa inuu Ilaahay jannada geeyo sababtu waxay tahay shaqada ee naga hayso shaqo yar ma ahan guys wallahi ma fududo sababtu waxay tahay waxaan rabaa inaan arko intee la egtahay shaqada ay qabanayaan hadda aan waa fadhiistabo so I don't know like gabdhaheena Soomaaliyeed ama hooyooyinka Soomaaliyeed ma fadhiistaan Messi hadda marka waxaan aruuri dhahay ma fadhiisato ayadu taagan aruurisa like ayado saan u taagan oo kale aroorsa lugaha la isku maran dhaweys lugaha so bodr waa dhidido wallah okay let me try an kaba gasho karo stay here waxa isku dayaa inaan kaba gasho karo 6 aan soo qaadana waxa isku dayaa in aan gashan karo 6 sababta waxay tahay waxaan rabaa inaan arko culeyska ee dareemayaan intuu la egyahay so 6 aan gashanayna hadartan cameraman waxaan waa Nancy thank you Nancy for the camera
so waxaa isku dayaa inaan arko intay la eg tahay culeyskeeda sigsaan gashana. How do you wear the socks? Like this? Oh no. روح دي بدنا آدم هذا صانع على شكو هيس موجودة روح دي بدنا أو آدم here move here move How do you wear this? Yeah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. الإله هو جنة إله هو جنة. I pray to God all the women they deserve to go to heaven. I can say that because this thing is really not easy. I'm 100% sure. I never feel before today. haddii af Soomaali ku dhahan waxay tahay maanta ka hor weligii ma aanan dareemin culeyska ay dareemayaan hooyooyinka Soomaaliyeed. The room is still dirty. You have to pick up all of these small things. I will pick it up, yeah. Every day, all day long. Every day, yeah. So waxaan rabaa inaan dhaho hooyooyinka Soomaaliyeed culeyska ay dareemayaan inaan arko. So neysad waxay dhaysaa waxaan dhan kor u qaat. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Arwax dhib badanaa Adam, help me up. And then you go to cook. Again to cook? Adam, stay here, Abu. Stay here. How do you cut your nails? Like if you guys wanna do, I can. Sixanta abu gishikirne saacadiha iskaga guran waayabe. Wana gabdheena uur kale saacadiha iskaga guran. A'uudu billahi minash shaytaanir rajiim. Waxa isku daya marka had waajifa waa seexana ina soo kici kara isku daya in kale marka. Sababta hata Adam kala xabo. Waxa isku daya ina soo kaco. Adam, help me. Ani ahaanteeda markii aan qiimeeyay culeyskan ama alaabtan intaan la eg ee caloosheeda ku jirto waxaa dhihi karaa wax fudud ma aha. Wallahi alcadiim inaysan ahayn wax fudud sababta u leeyahan wax kale ma ahan. Waxaa dareemi karaa maanta wixii ka dambeeyay waxaa dareemay culeyska hooyooyinka Soomaaliyeed ay dareemayaan. sababta waxay tahay wax fudud ma ahan aniga weligii waxa u haystay inay fududahay wallahi sugaa baxir waxa u haystay weligeebo inay fududahay sababta waxay tahay maanan dareemaynin nees hadda 7 bilood ay uur leedahay so waxa isdhihi karaa marka wallahi waxaan aniga hadda qarahan aan caloosheeda ku haayo sidoo kale ayadana intaas waxa la oo kale haysaa so marka waxa aaminsanahay in aysan fudeed ahayn ama aysan fududeen in aad qof uur la dhahdo guriga hagaaji ama shaqo qabo ama wax qabo kale inaad dhahdo juti qof uur la inaad dhahdo wax qabo ama howl qabo ma fududo sababtees u fududeen maanta arkay maanta ka hor weliga maan arag waxa u haysan jiray inay fududahay laakiin aan ahaanteeda waxa dhigi karaa wax fudud ma ahan ilaa waxa ka bariya hooyooyinka dhan kulligood inuu jannada geeyo shaqada ay naga haayaan shaqo yar ma ahan faaraxow baalkan anaa wallahi ku rafaadsan 10 daqiiqo hadda oo dhabarkii ku xiran yahay dhabarka dhan iguma yaalo qaybka qaar ka daba dhan waa igu yahay ma faanta marka waxa dhigi karaa cidiyaas iskaga guran tusaale had cidiyaha ma bal iska guri karabo ma faanta cidiyaas iskaga guran ma fahmi kari soo marka waxa aaminsanahay in aysan fududeen brother laa mara bahalkan meesha saaray dhabarka ka ikal laha wallahi in bid dhabarkii laga dhuftaa isku maleeyay ma faanta sababtu xitaa ma fududo
laakiin anaga waxa u haysanaa inay fududaa brother ma fududo qof uur la ka waran oo maanta dhan leeyahay shaqeey wax qabo jikada gal inta gal aroori kan saar dibka saar put up the camera jikada wax saar kan alaabtaan dhaq meeshaan dhaq alaabtaan habee fiirida adi shaqooyinkaas hooyinka dhan ahaayo hooyada u duceeno Soomaaliyeed waxa idin leeyahay dhamaantiin adiko isku duuduuban fiidiyowga haduu idin soo gaaro waxa idin ka codsanayaa inaad meel dheer gaarsiisaan hadda hore ila joogtay waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkayga aad daawatay haddaadan hore noola joogna martitaan soo dhawow channelka waa channelkaagi subscribe iyo like iyo share comment biyo cabaal oga dhig saaxiibka la wadaag fiidiyowgan 100,000 waxa rajaynaa sida ugu dhaqsiya badan inaa 100,000 subscribe ku gaari doono maalmaha soo socdo insha Allah fiidiyowga maalmahan midika joojinaya maalin walba ay soo daba dhigaa hadda next step waxa sugayaa alaab machine dalbaday machiinkaas waxa waaye gabdhaha caadada markay ku dhacdo sida ay dareemaan mi faanteen waxa ay dhacayeen waxa yeelay gabdhaha markay caadada ku dhacdo xanuunka ay dareemaan caloosha intuu la egyahay ina baraawayaa raaw machine dalbaday oo korontada ku shaqeynaya ay sugayaa gabdhaha markay caadada ku dhacdo kale sidoo kale ayagana bagaa xanuusto mandhiciraha xanuun kaliya xanuun ma dareen anaga faaraxadaanahay soo maxaa raaw marka ina baraawayo xanuunkaas intuu la egyahay aan arko kan waa tijaabiyay ma celinaya marka koobaad iyo marka labaad Allah subhanahu wa ta'ala hooyinka Soomaaliyeed maxaa dhamaantood Ilaahay jannada ha wada geeyo daawashada muuqaalka aad daawato oo ku maadsanta waxa ka mar labaad ka codsana video haduu soo gaaro subscribe iyo share like iyo share comment bi cabaal nooga dhig odayga maanta wuxuu baraawayay alaabtan uurka sida ay tahay waan arkay ma fududo oo way dhib badan tahay laakiin waxa uu sameeyay waxay ahayd baraaway ma fahanto waana ka calooshiida wata saa u jeedaan wax kale oo baraawaynin waxa u baraaway waxay tahay ina arko hooyooyinka xanuunka ee dareemayaan anaga ma dareeno easy agteena ka tahay